الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلي ولاشنا الله درتيس إذن جعلوا حين كسو قد جرني 40 كيني أما 40 كيني حديث كسو كنا ذي نبي قلنا حرس دوشيس الله يالنا وحين مرينا حديث كيني صدن سديدات إن شاء الله هذا وحين أقول بين حديث كيني صدن سجالات تدو إله قدره. بسم الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي والسنن. حديث كان وحا كهد لهيا أما كهد لهيا xaaladaha aan yacni qofka loo qabaneyn xilliga uu dambiga galayo. waxaa laga wariyay ayuu leeyahay xadiiskani ibn Cabbaas Allah ka raali noqday in uu yiri rasuulkii Ilaahay nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay in uu yiri Ilaahay yacni uu ka dhaafay umadiisa gafafka aan ula kac loo falin ama aanan ku talagal ka ahayn sida hilmaamka iyo wax in lagu qasbo qofka wax oo ku qasbid sida qofka wuxuu ku talagelin laakiin isaga lagu qasbayo ama dib loo geysto ama si kale loogu qasbay oo isaga aan ku talagelin oo qasab ay tahay dambiyada soo kale waa wax aan Ilaahay u qabaneyn. marka xadiiskan waa xadiis xasan ah waxaana wari ibn Maajah iyo Bayhaqi iyo kuwa kale. marka qofka dambiga lagu ciqaabayo waxa uu leeyahay waa in uu qofka uu noqdo qof gaar ah oo aqligiisana qof uu yahay qof aqli qaba oo isaga waxa uu sameeyay ay ka tahay kas iyo maag hadii uu u falo qofkaas dambiga ama waxa markaas uu sameeyay qofkaas in waajibaadka laga rabo waa inuu noqdo qof aqli leh oo markaas dambiga loo qaban karo. marka waxa kale uu leeyahay hadii uu ka tago waajibaadkiina waxa la soo gudboonaan karo 3 arimood midkood in uu qofku ku dhaco taasoo suuragal ay tahay in loo qabanaynin dambiga. waxaana kamid ah 3daas arin sida in hadii qofku uu ula kac aanan ka ahayn in uu dambiga u galo iyo waxa kale oo kamid ah qofka in uu si hilmaansan ama jaahilnimo oo aqoon darro ay u geysato in falkaas uu sameeyo dambigaas uu waxaas uu sameeyay dambi ay tahay ama uu dambigaas uu galayo isaga jaahilnimo ama ay ka tahay in hilmaan. waxa kale oo kamid ah arinta 3aad ay noqon kartaa qofka in lagu qasbo dambiga uu falayo. marka 3daas arin ama 3daas xaal midna qofka lagu ciqaabayo qofka dambiga uu la yimaado kaliya ama se waa laga cafinaya sida uu yacni inoo sheegay nabigeena. marka waxaan ka garan karnaa halkaas in qofka dambiga lagu ciqaabayo yahay midka uu qofka awood iyo karti u leeyahay uu kas iyo ogolaansho uu u galo isaga ku talagal uu sameeyo. marka waxaan ka faa'iidi karnaa xadiiskan ama faa'iidooyinka aan ka dhaxli karno waxa kamid ah xaaladaha aan qofka lagu ciqaabaynin dambiga uu galo. waxaan kaloo ka faa'iidi karnaa qofka in uu yacni wuxuu ku qaadayo mas'uuliyadda in ay tahay aqligiisa. waxaan kaloo ka faa'iidi karnaa in xaaladaha ay kamid tahay aan qofku loogu ciqaabi karin dambigiisa sida waalida iyo caruurnimada iyo xaalad kasta oo qofka markaas aqligiisa ay kaga maqan yahay oo sababa ama awood naqatay oo ka baxsan asaga awoodiisa oo lagu qasbay ama naqatay mid aqligiisa iska suulay oo ikhtiyaarkiisaba dambi uu ugu dhacayo. marka intaas ayaynu ku soo koobaynaa xadiiskeeni 9 iyo 30aad inta aynu kaga gudbeen xadiiskeeni
afartanaad. waa walaashiina allah dartiis idin jecel. waaquulu qowlii haadaa waastaqfiru llaha lii walakum. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. astawdicu allaha aladii laa tadiicu wadaa'icahu. alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa markale walaashina allah dartiis idin jecel. waxaynu kusoo guda jirnay 40keenii ama 40keenii xadiis ee ka sugnaaday nabiga nabadgelyo naxariis dushiisa allah yeelne. waxaynu maraynay xadiiskeenii 38 insha allah. haddana waxaynu u gudbaynaa xadiiskeenii 39 hadduu ilaahay qadaro. bismillaah. can ibni cabaasin radiallahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala ina allaha tajaawaza lii can ummati الخطأ والنسيان